السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامجka kan ama tusmadan cusub ee iyada ah ee ku magacaaban baaq ama soo jeedin u jeeda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. aragtidayda gaarka ahaan waxaan qabaa oo garashadaydu i siisay in Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay qof aad xilka u jecel iyo maamulka jecelna inuu maamulo dalka Soomaaliya intii ay u suurta geli karto ama uu awoodi karoba. hadalkaas iyo arrinkaasu macnihiisu yahay iyo nuxurkiisu in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu jecel yahay inuu xilka dheeraysto si uu ugu hakado xukunka. arrinkaas isaga ana wadiiqo kasta oo suurtagal ah, mid sharciyeysan oo legacy ku fadhida ha ahaatee ama mid ku salaysan qaab musuqmaasuqba ha ahaatee, inuu jecel yahay inuu adeegsado. saynu dhammaan ogsoonnahay waa markii labaad ee uu xukunka ku soo laabto ama uu xukunka ku fadhiisto Xasan Sheekh Maxamuud oo uu ku noqdo madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. saas awgeedna isla markaasna ma jiro dastuurka Soomaaliyeed ee qabyada ah ee weli aan la qabya tirin. Xasan Sheekh Maxamuudna laga hayo oraahda ah qabyo ninkeeda dhammaystira. in dastuurkaas isaga ah la qabyo tirayo uu ku jiro muuqaal loolan iyo in la duuduubo oo la dheereeyo cumriga lagu soo afjari lahaa qabyo tirkiisa. arrinkaas isaga ana loo falayo ujeedooyin siyaasadeed oo guracan. dastuurkaas isaga ah daawadayaal maaha dastuur qeexaya inta jeer uu ku eg yahay xilka madaxweynaha federaaliga ee Soomaaliya. wuu qeexayaa dastuurku muddada xukunka iyo xilliga uu qofkaas isaga ee madaxweynuhu xukunka ku sugnaan karo, balse dastuurku ma aha mid qeexaya inta goor uu qofkaas isaga ee madaxweynaha noqonaya uu xukunka ku soo laaban karo oo uu wax xukumi karo. saas awgeed wax ka hortaagan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu mar saddexaad xukunka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ku soo laabto ma jiro. macnihii diidma ka soo jeeda dhanka dastuurkaas isaga ay tilmaaman ma jirto. saas awgeed ilaa inta diidmadaas iyada ah ama arrinkaas isaga ah la hirgelinayo oo uu dhaqan gelayo, Xasan Sheekh Maxamuud mar saddexaad iyo mar afraadba waa u furan tahay inuu xukunka ku soo laabto oo uu tartanka aan halkaa qeexeyo saxe inuu tartanka ku soo laabto madaxtooyada. arrinkaas isaga waa arrinka jeclaysiga Xasan Sheekh Maxamuud ee xukunka ah
arrinkuna mar hadduu muuqaalkaas yahay oo qaabkaas u dhigan yahay wax lagu eedayn karaa mudane xasan sheekh maxamuud oo arrinkaas ku saabsan ma jiro, balse arrinkaasu waa iga iftiimin iyo fiira gaara. saas iyadoo ah baa waxaan oran karaa ama la oran karaa xasan sheekh maxamuud maanta inuu haysto jaanis ama fursad dahabi ah oo aada u sarreysa. duruufta siyaasadeed ee sooyaaleed ee taaganna ee arrinkaas isaga ah siinayso, loona baahan yahay in xasan sheekh maxamuud arrinkaas isaga ah fiiro gaara u yeesho oo uu ka faa'iido fursaddaas iyada dahabiga ah, arrinkaasna uu ka fiirsado iyadoo fursadda dahabigu ay siinayso inuu si sahlan isla markaasna hufnaan ku maldahan tahay qaab noocaasa inuu xukunkii mar saddexaad ugu soo laaban karo. fursadda dahabiga daawada dhegaystay waa iyadoo maanta dalka Soomaaliya duulaan Itoobiya ay ku tahay. duulaankaas isaga ah qaabka iyo majaraha uu ula saanqaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu noqonayaa laba midkood. kan koowaad oo ah in xasan sheekh maxamuud ku soo baxo haliyey qaran hadduu guto waajibaadkiisa siyaasadeed ee qaran qaabka ugu habboon oo danta ugu jirto bulshada Soomaaliyeed. halkaas iyada ah muuqaalkaas isaga ah xasan sheekh maxamuud wuxuu yeelanayaa muuqaal haliyey qaran, waana fursad uu ka faa'iidi karo. run ahaantiina aan u arko fursaddaas inuu ku khasban yahay inuu ka faa'iido, la-aanteedna uu ku dambeyn doono haddaanu ka faa'iidin muuqaalka labaad ee aan tilmaamayay oo ah hadduu fursaddaas iyada ah sii daayo oo ula saanqaadin adeegsigeeda qaabkii isaga ahaa ee ugu habboonaa oo danta guud ee Soomaaliyeed ee ku jirtay. halkaasna uu sooyaalkiisa iyo taariikhdiisu ku dambeyn doonto mid uu ku galo baal mugdiya oo lagu tusaale qaato marka sooyaalka Soomaaliyeed la falanqeynayo. run ahaantiina labadaas doorashoba waa laba arrimood oo u yaala madaxweyne xasan sheekh maxamuud, loona baahan yahay inuu ka raaco muuqaalka koowaad oo ah inuu ka faa'iido fursaddaas oo adeegidda bulshada Soomaaliyeed oo ula saanqaado muuqaalka ugu habboon ka hortagga iska caabinta duulaanka Itoobiya. arrinkaasna uu u horseedayona keenayo in bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ay garab istaagaan. run ahaantii arrinkaasuna dhankaas arrimaha siyaasadda gudaha ee Soomaaliyana uu jaanis fiican laftiis uu uga galo uu ka caawiyo. micnihii qof horseedaya oo u halgamaya oo u hanqaltaagaya danihii ummadda Soomaaliyeed iyo iska caabintii cadowga deriska ah. arrinkaas waa mid keenaya in bulshadii Soomaaliyeed ay ku hirato u dhagan nuglaato wixii xagxagasho ah ee gudaha ah iyo mucaaradnimo liidata oo hooseysa oo personal attack ku salaysan inay ka daboosho. taasina waa fursadda
koowaad ee qaybteena gudaha ku salaysan. garan maayo anigu hoggaan siyaasadeed ee Soomaaliya soo maray oo maanta fursadaas iyada ay dahabiga ee soo martay, balse waxaanan garanayn daawada dhegayste qaabka uu ula saanqaadi doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud fursadaas maanta garoonka siyaasadeed uu overgareeyay oo hortaal. arrinkaasuna waa mid furan oo aan arki doono halka uu ku dambayn doono iyo qaabka uu ku dambayn doono. waa anigoo ah Khaalid Xasan Yuusuf. intaan ku kulmi doono barnaamij kale oo ka lamida. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.